wafdigan uu hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayna qayb ka ahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug cali gacal casir xildhibaanay wasiir ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaad ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka galmudug ayadoo garoonka diyaaradaha Cadaad ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soo dhaweynta wafdiga madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed kadib waxa la hadlay warbaahinta gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir kaas oo ka warbixiyay howlo shaqo mudooyinkii dambe deegaanada galmudug ay kaga maqnaayeen muddada aan kala maqnayn waxaan ku maqnayn howlo shaqo lagu maqnaay oo gaagaaban oo anigana aan qaar ku maqnaa qaarna madaxweynuhu uu ku maqnaa inta badanna waa soo gabagabeynay insha Allah sidii maaragtay dawladda galmudug ay tilaabo hor u qaadan lahayd sanadka cusub oo ay u koosan lahayd si maaragtay loo helo maaragtay faa'iidadii la raadinayo ahayday ama amniga ha noqoto ama ha noqoto maaragtay deegaankan iyo wax qabadkiisa ha noqoto runtii wax badan laga soo qabtay oo sharar badan laga soo galay oo dhinacna madaxweynaha uu maaragtay ka soo galay dhinacna aniga aan ka soo galay iyo howlihii sidii loo qaban lahaa maaragtay sanadka cusub sidaan u la koosan lahayn iyo meeshii laga bilaabi lahaa iyo farsamadeedii caalamkana waa laga hadlay in badan oo kamid ah dawladda federaalkana in badan oo kamid ah waa laga hadlay oo waa kala hadalnay runtii meel fiican ayayna noo marayaan waxaan rabnaa in aan maaragtay wararka dambe aan ku bixino insha Allah wixii guulo ah imaatinka madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay ku soo aadaysaa iyadoo lagu wado in 5 bishan kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug oo ka furmo magaalada Cadaad ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka galmudug Daahir Faarax Ahmed TV-ga Kalsan Cadaado.